magaaladani Burco ee xarunta gobolka Togdheer maalmihii u dambeeyay waxaa ka dilaacay shuban biyood taasoo sida fiinta ay uga qayliyeen maamulka gobolka Togdheer. Haddaba gurmadkii u horeeyay waxaa bixisay madaxa caafimaadka guud iyo fayadhowrka wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer gaar ahaan degmadiisa Burco. Waxaana nooga warbixiyay Dr. Faarax Cali Dalmar kaasoo fariin adagna u diray bulshooyinka ku dhaqan magaaladaasi Burco. guud caafimaadka iyo fayadhowrka degmada Burco waxay gelin balaaran baan aad u bilaabnay oo ku saabsan gobolka Togdheer meelo badan waxaan geynay koloriino meelo badanna biyaha waan aasnay oo dawladda hoose naga ka kaashanay marka in kor loo laba qaado waa muhiim shubankuna hadaad aragto rabadaanku markay bilaabanayso iyo markay dhamaanayso labadaba waa dabiici waa food poison inuu si socdo iyo inuu yaraado labadaba waa dhacaysa marka muhiimadu waxa weeye dadka waxay gelintan u sheegin waxa weeye waa in ay koloriintii isticmaalaan guriyaha ku masixi jireen gacmaha ku falxalin jireen suuligana markay galayaan markay soo baxayaan labadan ay falxashaan daqsiga ayaa ugu muhiimsan oo gudbiye ah daqsigaasuna waxa weeye markii horena roobka dilay markii dambana dabeesha ayaa dilayso waxay gelintan balaaran hadda la wadana aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa sargaalka ugu sareeyo wadinkan hadda ka hadlaya Abubakar oo si voluntary dadku u gaarsiinayo waaxdana way shaqeystaan oo wax aad u balaaran oo waxa la yiraahdaa caafimaadka guud iyo fayadhowrka iyo nadaafadda laba casho koor waxaan ku jirnay saribadan Faarax Omar tan hilibka iyo tan kalluunka labada waa ku jirnay waan buufinay wax qabad balaaran ba sameynay dawladda hoose waxay gelintii waan u sheegnay inay wax gelinta ka qayb qaadato meelaha biyaha fadhiista ay aasaan marka aad iyo aad baan waxaan u rajaynayaa insha Allah taala in wax qabad wanaagsan ee gobolka ka dhaco qaybta caafimaadka guud iyo fayadhowrka ee laga hortagayo shuban. waaxdii u horeysay ee fidisay gargaar degdeg ah si loola tacaalo xanuunka shuban biyoodka kaasoo ka dilaacay guud ahaan magaaladani Burco. Wariye Maxamed Wardi, Burco.